horta sharaf weyn bay ii tahay runtii inaan soo hor istaago shacbigaygii codka dayro caadiga ah degmada niga siiyey codkiinnii aad siiseenna labaan seexane waa ku shaqaynaya horta taa la socda haddii allay walaalayaal sida ka warqabtaan dugsigana muddo dheer buu soo jiray muddadaa dheer uu soo jirayna dadka deegaanka ayaa xil iska saaray sidii ay u qaadan lahaayeen mas-uuliyaddiisa wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiintoodana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhiirigelintooda imaanshahooda ka warhayntooda iyo hadday maanta inoogu dhawaaqayaan wuxuuba waa $80,000 marka la isu soo celiyo sanadkii oo dhane inay inoo dhiibaan oo iskuulka ay nagala wareegaan dee kaana waynu ugu mahad celinaynaayo ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa in ilaahay qalbiga ugu rido intaasoo ay ka soo booda iyaga walaalayaal sida halkan laga dhawaaqay ardayda ka qalin jabisay sanadkani waa 7 arday dugsiga sare 7 arday ee ka qalin jabisay 3 qof waxa qaatay ururadii bulshada iyo qof shakhsiya qaatay ilaahay ka jazaaysiiyo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka anigoo ka wakiila gudoomiyahayga Faysal Cali Waraabana ka wakiila maanta halkan hortiina waxaan ka qaadanaynaa annaguna horta 3 arday baan qaadanaynaa haddii allay iskuulkii wuxuu u baahan yahay horta waxa kale aynu iska daynay hoolka noocan oo kale ay ardaydu wax ku akhristaan inaynu ugu xidhno solar system ay ardaydaasi wax ku akhristaan si ay wax uga caawiso wax akhriskooda haddii allay sidaa awgeed solar systemkaasi wuxuu ku kacayaa sida naloo sheegay qadadna uu imika nagu hayo telefoonkiisa $3,500 $3,500 annagoo garanaysa xisbi mucaaradaan hoodee waxba gacanta nooguma jiraane $1,000 baanu qaadanay kaana aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa madaxda dhammaantoodna waan salaamayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin